السلام عليكم صاحب يال walaalayaal oo in salaamay dhamaantiin soo dhawaada waa walaalkiin cali onkod youtube channel ka daawanaysiin waa onkod tutorials oo aad uga barateen fiidiyoada in xiiso geliyo haatan ku soo dhawaada fiidiyo kale oo xiiso badan fiidiyogeena maanta waxaan uga hadli doonaa haddii la yiraahdo sida aad u qarin lahayd ama sida u qarsan lahayd tirada subscribers-kaada waxa laga yaabaa inaad ku qanacsanayn tirada subscribers-kaada ama ay yarisaad u yaryihiin ama aadan doonaynba in dadku ay arkaan subscribers-kaada daawasho wacan fiidiyogan waa fiidiyogaadii ugu horreyn waxaad soo furanaysaa browser ku jira mobilkaada ani browser ani hadda Chrome ayaa isticmaali doonaa haddii la yiraahdo Chrome markuu sidan kugu soo baxo waxaad tagaysaa qaybta searching-ka ee wax laga raadiyo waxaad qoraysaa youtube.com markaad qortid kadib waxaad leedahay go telefonkaada wuxuu u baahan yahay markaan inaad ka dhigatid desktop site haatan u jeedaa telefonkii wuxuu isku bedelay desktop site markuu sidaas desktop site isku ka bedelo waxaad samaynaysaa qaybtaas kore ayaad waxaad tagaysaa meeshaas ay profile icon-kaada oo ku suran yahay ama calaamada profile icon-ka kadib waxaad kasii dooranaysaa YouTube Studio markaad ugu sii dooratid wuxuu kuu soo furayaa sidaan ayuu kuu soo furayba YouTube Studio kadib waxaad tagaysaa meeshaas ugu hooseydo calaamada settings kadib click ayaa siinaysaa kadib meesha waxa kuu soo taxay u jeedaa tools badan toolska anaga midka u baahanahay waxa waaye channel u jeedaa meeshan haddana tools kale ayuu nagu soo taxay midka u baahanahay waxa waaye advanced settings kadib advanced settings ayaad click siinaysaa u jeedaa meeshan wuxuu ku leeyahay channel-kaada haddii uu ku saabsan yahay caruur waxaad leedahay yes haddii uu ku saabsan yahay no aad leedahay hadda waxaan leenahay no u jeedaa hadda subscriber count oo noo soo saaray subscriber count-igan hadda hoosteeda waxaad u jeedaa inuu leeyahay display the number of people subscribed to my channel kadib calaamada displayda ka dambeedo ayaad ka qaadaysaa tigta waa u jeedaa hadartaan tigta waa ku qaaday sidaas ayaad uga qaadi kartaa tirada subscribers-kaada channel-kaaga si ay u arkin dadka haddii ay yar tahay subscribers-kaada waxaa laga yaabaa dadka inaysan ku soo booqanba ama se ay dadka ay kaa goostaanba haddii ay aadba haysanba subscribers-kana waa kuu muhiim inaad iska qarido subscribers-kaada marka ay kuu badatana calaamadaas hadda displayda meeshaad ka qaaday gadaasheeda ayaad tig siinaysaa marka uu badato haddii kalena waad ka qaadaysaa hadda aniga ka qaadaya saas ayaana ugu qarsan kartaa dadka tirada subscribers-kaada ama dadka subscribe gareeyay channel-kaaga inta ay la egyihiin xaggaas sidaas ayaad uga qarsan kartaa waana hab fudud waan filayaa inaad fiidiyogan wax badan ka faa'iiday haddii aad tahay marka ugu horreeyay ee aad soo booqato channel-keena fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saartid fiidiyogan like saartid waana ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan